بركة إله نحريستي سكبوسا مينو ورحمتي وسعت كل شيء تتكهنو ويدا نحريست إلهي ظلوم باتاي ظلوم ظلمي جيستي مد ظلمي جيسو بدايعي مركلي ما واحد ظلمي سمينا إنه مر بدن بان ظلمي جيسنينا الله إن أبو ريبان ظلمني ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام حقي سيبان ظلمني وحقوق دي والد كل هيد من ملك قد عني وحقي قرابتنا وانكو قفني وحقي ريريهن يعرورتنا وانكو قفني وحقي جاركنا وانكو قفني مر والبا وحانا كو قفيا بانهي مركا ادغو وحاتا مد ظلم جيست بدن او كفاره او الهي نعمده كسيينا قريي او دبولay با tahay aayadaasi xagga hore waasida xagga dambana waasida aayada ku taala fi surati an-nahl ilahi wakilaha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim haddaad ilaahay nicmadiisa aad isku daydaan inaad tira ku soo koobtaan baa ilaahay yiri ma soo koobi karaysaan ilaahay rabbigiinuna waxa weeyaan waa mid dhaafid badan oo naxariis badan baa la yiri rabbigiinu waa mid dhaafid badan dambi kastood gashaan haddaad ka soo noqotaan dambigiina ilaahay wuu dhaafayaa waa mid naxariis badanoo si kastoo naxariistiisa uga quusataan ilaahay jalla wa ala waa inii naxariisanaya waxaad ogaataa addoonkan oo weeyaan macnuhu haddaad adigu aad tahay kii dulmi geystaha badnaa kii daalimka ahaa ee kafuurka ahaa haddaad adigu aad tahay ha quusan buu ilaahay ku leeyahay anigoo rabbigaagiya waxaan ahay ghafuurur rahiim baan ahay mid dhaafid badan oo naxariis badan baan ahay ii soo noqo baa ilaahay ku leeyahay يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة حديث القدس با إلهي كليها إن آذنوا مربع داد أدقو أنك آدي بريسو أودي رجينيسد أود وجهك دولك إيديكيسد أودي بريسد دنبغا دونتد إن دنبغا آدقشا إنتو دونا بحالة كاده وانكو دافيا با إلهي عد أنواع بيالا يونوك جوسني أنا مجرت با إلهي عد أورانيسا يا ربي أدونكن waa dambiile maxaa dambigiisa u dhaaftay oranaysa ma jirto hadaad marba adigu aad muslim tahay oo muumin aad tahay oo ilaahay keligii aad baryaysid keligiina aad rajaynaysid dambiga ka dhaca intuu doonay hal leekaade hadaad ka soo noqoto dambiga oo shuruudii toobada laga helo ilaahay waxa uu leeyahay dambiga waan dhaafayaa law balaqat dhunubuka anana as-samaa hadii dambigaagu uu gaadho fadka samada oo istighfar adiga dalabto waan dhaafi baa ilaahay ku yiri law ataytani malika qiyaamaha arlada muggeedo gafa adigoo wata hadaad ii timaado laakiin bishardi aad iigu timaado adoo ii soo shariik yeelin gafka aad la timid in la ego dambi dhaafa kula iman baa ilaahay ku yiri shardi waa maxay waa inaad tahay shakhsi muwahhid oo ilaahay rumaysan barka ilaahay naxariistiisa ka quusan mayno ورحمتي وسعت كل شيء تتكهنو ويدا نحريست إلهي إمام الشافعي رحمه الله أيا أركنين مل فرديو آدو مروغيسن مركابو أوتوغو أولا فرديستن ننكي وريستن مركابو حيري وما حد باتاد عديك كواهيستا مروغ باكا موقاتي مصيبة يقول دعدي بودنين مصيبة يقول دعدي وانا هاي بودون دي بسنة wuxuu dadkaba masiibadu way ku dhacday waa maxay adiga ku gaarkii wuxuu aniga tu gaara igu dhacdo haysato dadka kale waan ka duwanahay buudi masiibada maxay tahay adiga ku gaarkii wuxuu dadkii iyo aniga ayaa kala baxnay buudi oo cid aan la heshiisahay ma jirto hooyaday aabahay waan kala dhaqaaqnay reerkeygii oo ilmahayga waan kala dhaqaaqnay jaarkeygii waan kala dhaqaaqnay qaraabadeydii waan kala dhaqaaqnay cid aan la heshiisahay haba yaraatee ma jirta buu ku yiri marka culimadu firaasa wax la yiraahdo ay lahaayeen ittaqu firasata almu'min fa innahu yara bi nuuri illahi bu nabigu alayhi salatu wasalaam qofka mu'minku wuxuu leeyahay nuur qalbigiisa uu wax ku arku leeyahay iska ilaaliya bu nabigu alayhi salatu wasalaam imaamkii wuxuu gartay ninkani in xagga ilaahay isaga xiriir uu ka go'an yahay buu gartay
hal su'aalu markaa weydiiyey uu mashkiladiisii oo dhan ku xalliyey waa maxay su'aashaasi wuxuu ku yidhi waryaa i dhegayso 100 qof inaad hal mar raalli gelisaa iyo qof kaliya inaad raalli gelisaa bal kala dooro kala sheeg markaasuu ku yidhi midka kaliya ila fudud waxaa markaa baa lagu yidhi waliba midka kaliya hadduu adiga raalli kaa noqdo ood isaga raalli gelisid 100ka kale isaga ka raalli gelin baa lagu yidhi markaasuu yidhi midkaasi waa midkee buu yidhi markaasuu yidhi waa Allah weeyaan markaasuu ninkii wuxuu yidhi sheekh wallaahi meesha leega haystaad ii sheegtay buu ku yidhi nolosha aan fahmi lahaa iyo cidhiidhiga aan dareemayey iyo muqaatacada dadku ay igooyeen oo dhan waxa u sababa waad ii tilmaamtee aniga iyo rabbiga xidhiidhkii naga dhaxeeyay baa meesha jirin buu yidhi jazakallahu khayr buu marka halkii buu ninka ku toobad keenay haddaan doonayna inaan ka baxno dulliga iyo ciriiriga iyo dawarsiga waad ogtihiin dadkeennu dawarsi bay ku jiraan maanta Soomaali haddaan dad adiga dadnimadaada ka hooseeya maanta wax ku yeedhinaya oo ku maamulaya oo ku talinaya wana min calaamaati saaca nabigeena sheegay sallallahu alayhi wasallam idha tukhudha al-fay'u duwala wal amanatu maghnama wal zakatu maghrama wa tu'allima li ghayri ad-din wa ata'a ar-rajulu imra'atahu wa 'aqqa ummuhu wa aqsa abahu وأدنى صديقه وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقهم إلى آخر الحديث شان يتبخص لوضب نبي حديثك أو كشيغي ويري أمد إذا شان يتبنك على ممركات كأركتان بلا يدا أمد إذا كد عليه أقاد أبو نبي عليه الصلاة والسلام إن يربان كتابان إن كسو وقت نقول كوبينيهي وحاو نبي قول الدول وحال إلى وحنتد قود أمد أيلاد هي dad gaara markay danahooga u isticmaalaan kii amaana loo dhiibtayna amaanada dad u dhiibtay inuu markaa qaniimo u timid intuu iska arko iska isticmaalo kii zakada dhiibayayna sida deyn lagu leeyahay markuu zakada u dhiibo waxaan diinahayna dadku markay bartaan waxa uu nabigu sheegay yiri iyo marka uu ninku haweenaydiisa u adeeco hooyadiisii dhashayna uu iska dheerayo caaq ku noqdo waalidinkaar uu ku noqdo xaaskiisana uu dhagan nuglaan hadalkeega iyo amarkeega hooyadiisii dhashayna maaragtaana idhaaf buu oranayaa aabihiisii dhalena uu iska dheerayn buu nabigu yidhi saaxiibkiisana uu soo dhoweyn wa kaana zaciima alqawmi ardhaluhum qowm walba markuu hoggaanka u qabto kooga ugu liita buu nabigu ugu liita wasaada alqabiilata faasiquhum qabiil qowm waa dadka af keliya ku wada hadla wamaa arsalnaa min rasuulin إلا باللسان قومه إلهي بالقرآن كأنه أقول شيء قوم معناه وحويان وعدتك اللغة كلية كوضا الله وقوم قوم والبمركوه قام يبو نبي يقول كوغا وقول ليتا وكان وساد القبيلة فاسقهم قبيل كنا وارركي ويان وجفدي هوسي أيكون مركة ثلاثة أوديبتان كوغا إلهي كفق بلا عبادة بلا تقوى وحاصل دم النبي يقول شيء نوتري ومن علامات الساعة النبي عليه الصلاة والسلام أمد عريريغا يدلغا يدورس كما بحيث إلا إلهي أصول نقطة مويانا عمل كينا بدلينا نولشنا إلهي سقا بدلي مركز وعقوبة عابة مسلمين تونان هايساتا مانتا عقوبة عامة ويان ومسلمين تعامهان ودن كود عضو كوهب ستي مركي كتابك إلهي جل وعلا لقد تقي سنة النبي محمد لقد تقي أي عقوبة دا سنقود عدي مانتا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورهد النبي محمد يريبا إلهي نوغشة في سورة الفرقان إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب قوم كيجي وريرك النبي محمد وكرد شيء ويا قوم جيسوا عرب وحي كيشن كتابك إلهي جاس رقم كيسيبه كهجرودين برشدي سيبه كهجرودين اسكو حكم كيسيبه كهجرودين كشقين تسيبه كهجرودين
كي قرآن كبرنا وودآت بيدادين معلن كي المها قرآن كأوديجينا وحال لقول معلن عيالك محاد برتاعدو قرآن يرون بعد برتاعه وهو يو أرضي مركو بش لعقتي وديبي وهي مدرسة ده أيو معلن كل دور جربوا عليه مركز إسلامتي أدو عريسان باسوق وتلمه جعنته أوتي مد معلن كي معلن المها يروى سوء العلي سمحوا سوء العلي نيسا حكى قلدن مركز وحويقة ما قلدنو لعقتها بحيو ماشي أنا كجرة واكرة ويان لا يركني والله عق ويان معلن كاني وضد reeruka mas'uuliyad dhagax iyo geed maaha wuxuu reerkiisa siiyuu rabaa markaa bay ku tiri macallin waaba isxariifinaysaa maxaad u dhigtaa bay tiri quraan yar baad u dhigtaa quraan yar adi waa kula yar yahay quraanku laakiin u fiirso xadiiska nabigeena kaleey salaatu wasalaam al-maahiru bil quraan ma'a as-safarati al-kiram al-barara ardayga ama ninka sheekha ama gabadha saalixada ee quraanka taqaana ee xuquuqdiisa iyo xuruuftiisa ilaalinaysa ku baratay ku xafiday maalinka qiyaamaha bini aadanka la soo bixi mayso waxa uu nabigu sheegay malaa'ikta inuu qofkaas la soo bixi doono malaa'ikta quraanka u qaabilsan ee quraanka xafidsan ee cibaadada ilaahay ay ugu dhawaadaan ay tahay quraan ay qofka quraanka yaqaan uu la soo bixi doona marka ihaanada maanta muslimiinta caam ahaan haysata inaka halka isdhignay كليا وحال الربا إنه مدى لقاها للتوبة إن الإله وصل نقنون توبت كأنه بني آدم بأنه الدم بوين قد عيا لكنها قوسا ورحمة إلهي كقوسا هذا أدقو آتهي إلهي في سورة إبراهيم بإلهي كجري وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وفي سورة إبراهيم بلغو شيغي في سورة النحل إلهي وحوكو شيغي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن الله لغفور رحيم سدا إنا آيات وحيد بان جعلها والله با آيادود حق يدهر آياده واسكو معنى ويان لكن حق الدنب الله بدا آيادود معنى كلا دوان بيشيغيان آيات سورة إبراهيم بان هرتز دول تاقي إلهي بايدي وآتاكم من كل ما سألتموه وحي آدي ويديستين إن يدكو قبتين إد جعليدين إن نفتينو أيدون يسي أما عربك كشاكتو إنكو قرطع وإلهو نصير هذا أما إلهي إني أبو ربا إني يقان وحي إني ونكسنه وإلهي وإني سيي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذا دسكود دايدان إلهي النعمة دي سترين أتكسو كوبتانا مكوا بكريسان بإلهي يري إن الإنسان لظلوم كفار إنسانك ومن ظلم جيستبدا كفار ويان ولبا ومن نعمة إلهي إنكري ونعمة إلهي قريي ظلوم باتاي ظلوم ظلم جيستي من ظلم جيسو بدن يعي مركلي ما واحد ظلم سمينا إنه مرر بدن بان ظلم جيسنا الله إن أبو ريبان ظلمني ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام حق سيبان ظلمني وحقوق دي والد كل هيد من ملك قد عني وحق قرابتنا وانكو قفني وحق ريريهن يعرورتنا وانكو قفني وحق جاركنا وانكو قفني مر والبا وحانا كو قفيا بانهي مركا ادغو وحاتا مد ظلم جيستبدن او كفاره او الهي نعمته كسيينا قريي او دبولي با تahay aayadaasi xagga hore waasada xagga damana waasada aayada ku taala fi surati an-nahl ilahi wakilaha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim haddaad ilaahay nicmadiisa aad isku daydaan inaad tira ku soo koobtaan baa ilaahay yidhi ma soo koobi karaysaan ilaahay rabbigiinnuna waxa weeyaan waa mid dhaafid badan oo naxariis badan baa la yidhi rabbigiinnu waa mid dhaafid badan dembi kastood gashaan haddaad ka soo noqotaan dembigiinna ilaahay wuu dhaafayaa waa mid naxariis badanoo si kastoo naxariistiisa uga quusataan ilaahay jalla wacala waa inii naxariisanaya waxaad ogaataa addoonkanoo weyaan macnuhu haddaad adigu aad tahay kii dulmi geystaha badnaa kii daalimka ahaa ee kafuurka ahaa haddaad adigu aad tahay ha quusan buu ilaahay ku leeyahay anigoo rabbigaagiya waxaan ahay ghafuurun raxiim baan ahay mid dhaafid badan oo naxariis badan baan ahay ii soo noqo baa ilaahay ku leeyahay يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة حديث القدس با إلهي كليها إن آدنو مربع داد أدقو أنيق آدي بريسو أودي رجينيسد أود وجهك دولك إيديكيسد أودي بريسد دنبغا دونتد إن دنبغا آدقش إنتو دونا بحالة كاده وان كودا فيابا إلهي عد أنواع بيالا نوغ جوسن يعني مجرد با إلهي عد أورانيسا يا ربي أدون كان واد دنبيلا محاد دنبغيسا أودافت أورانيسا مجرتو هذا مربع أدقو آد مسلم تهي أود مؤمن آد تهي وإلهي كليجي آد بريسد كليجينا آد رجينيسد دنبغا كادا إنتو دوني حالة كاده هداد كسو نغوت دنبغا أو شروط التوبة لغا هلو إلهي وحاو كليه دنبغا واندافيا لو بلغت ذنوبك عنان السماء حدي دنبغا وقاد فتك السماء أود استغفار أدقى دلبتو واندافي با إلهي كيوري لو أتيتني مالك قيامها أرلد مجد وقفة أدقى وتحداد إيتمادو لكن بالشرط أدقى تماد أدو إيسو شريك يلين قفك أهلتي مدى إلا أقود دمدافع كولاي من با إلهي كيوري شرط ومحي وين أتاي شخص موحد إلهي الرميسان بركة إله النحريستي سكبوسا منه ورحمتي وسعت كل شيء تتكهنوا ويدا النحريست إلهي حديث كوي الله صحيحين كان نبينا عليه الصلاة والسلام وحل الناس وقبنا يا أمته نقهر يقفك أي قلين إلهي نحريستيس وسعده إذا يسوي نبيه النوت المامية أي نبيه النوغو الشيقي نجي ريبان إسرائيل هاي بقول كنفقويي أي ويديادتك كويري ورع عالم نين عالم أيت الماما مركاسا نين عالم مركي دم الله المامي نكي عالمك أيوي مدوحو كويري تايبانا هاي بقول نفن وان قبادي قوديي توبد ميان لا هاي ها توبد والله هاي بو كويري توبد والله هاي لكن شروط بكو حدا وحا وكويري شروط سوى شرع لمن قبلنا بعلماء ولادين وحا شروط كمدة توبة هذا إن لقا أقبلوا ما شنات جوتوا ميل دد حنبا كنول أو دقال بدن أو دب بدن أو دد ديك دادية كب بدن أيا كنولي كدح بحبوري دد كان يدل كان كقور حقيدو قور إيسا دول كاس دد وناكسن با كنول دد كا إله إلا سو عابد بكويري meel dad wanaagsan ku nool yihiin tag oo irtixaalay markaa ninkii safarkii buu guda galay isagoo wali meeshii uu socdo u hijroonaya aanan gaarin ayay geeridiisii timiday naftii markay ka dhacday malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul raxma isku qabatay malaa'ikatul raxma waxay leeyihiin addoonkan uu toobad keenayo ruuxdiisa annaka qabanayno qaadayna bay leeyihiin malaa'ikatul cadaabna waxay leeyihiin may addoonkan boqol naf buu qabaa waa dhagar qabe weeyaan cadaab baa loo qaadayaa ya keena markaasaa ilaahay soo diray malag suurad aadamiya loo soo yeelo lagu yidhi arlada dembiga uu ku galay iyo arladuu rabay inuu u hijroodo mitiri baa lagu yidhi u mitiri taw xaggeega u bata dadkeega ku dara baa lagu yidhi بركاسا إلهي تبارك وتعالى وعزيز وكريم ورحيم والرحمن في بعض الروايات وحو نبي الشيقي قلكو السعودي با إلهي وحي وذو كيري أدوان كيغا النار إنو يقال مجعلي أدوو با إلهي كل أدوو انت إلاك با ديراتيب النبي قول الشبر لأن ملايكتي إن حريست الله ورقتو صداسو أدوان كي إن حريست إلهي كو مطيستي حديث كاس وحاو النبي قول إنه الشيخ عليه الصلاة والسلام ومحي هقوسن وين حريست إلهي كقوسن صنقو إن تابوا إلي فأنا حبيبهم أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب والمعائب لأظهرهم من الذنوب والمعائب إلهي بحديث القدس وحو كيري حدي أضومها يقول أنك إيسو نقدانا كسو نقدا كي جعل بانا هيبا إلهي كوا استهيريا يا طهارة قادنا يا ذنوب تسكن ميريا يا كوا إلهي أصور نقدا دنبك كتوبت كيني
labadaaba waan jecelahay baa ilaahay yidhi fain lam yatuubuu ilaya hadday aniga addoommahaygu ii soo noqoni waayaan oo ay toobad keeni waayaanna hee fa ana tabiibuhum ma daynaye waan dawaysanayaa buu ilaahay yidhi addoonkayga oo maxaan ku dawaysan balaayo iyo masiibo ayaan ku keenayaa si dunuubta iyo macaayibta iyo nuqsaantooda aan uga maydho ay u gartaan rabbi inay leeyihiin deedna u soo noqdaan baan u keeni balaayo baa ilaahay yidhi dalka innagu aan ka soo jeedno haddaan Soomaali nahay waxaad ogtihiin 5 sanaba masiibo magac kale huwan baa soo maraysa hadda maalmaha ay dhaweyto daadad baa qaaday ummado dhan oo dal dhan baabiyey oo beero dhan baabiyey oo intaas oo bashar ay ku dhimatay oo intaas oo xoolana ay ku halaagsameen masiibo 5 sanaba masiibo magac kale la huwiyey ayaa ilaahay nagu soo diraya waa maxay waxa ubtalihim bil masaa'ib ilaahay baa inagu leh adoomahayga waan jecelahayo maadaama boqol muslimiin yihiin oo muwaxidiin ay yihiin waxaan balaayadii masiibada ugu keenaya wax kale ma aha dambigay galeen baa rabaa inay ka soo noqdaan baa ilaahay leeyahay laakiin dadkeenu wali ma toobad keenin inaan toobad keenin waxa uu daliila masiibadii waddanku ku burburay ilaa imika dhamacdeedii way taallaa qaarna way hurinayaan oo waxay ka huriyaan inta badan waxaan la yidhahdaa social media-ga ka hurinayaan waxyaabahaan doonayna inaan ka toobadkeena qabyaaladda ka mid ah haddaan qabyaaladda ka toobadkeenno albaabo badan oo inagu furan oo cuquuba ayaa ilaahay naga daboolaya waa inaan ka kacna qabyaaladda kor uga baxnaa oon u baxnaa alislaamiya annagu muslimiin baan nahay ilaahay dad muslimiin uu naga dhigay dal boqol muslim ilaahay nagu abuuray dal boqol dadka ku nool isku madhab yihiin baa ilaahay nagu abuuray dad qoys kaliya ilaahay naga dhigay waa inaan toobadkeena ummadda aan ugu yeedhnaa waa inaan ummadda toobadda ugu yeedhnaa at-tawba nabi huud calayhi salaam qoom Caad baa loo diray reer Caad waa qoomkee bay haayeen waa qoomkii yidhi man ashaddu minna quwwa ayaa naga xoog badan bay yidhahdeen qoom Caad ayaa naga xoog badan ilaahay quwad buu siiyey qoomka quwad ilmahooga 5 jirka bay culimmadu yidhaahdeen 5 jirka ayaa dooga beqlay tagaada sida ilmaheenu u rujiyo ugu ciyaaro ayaa geedka timirta ilmahooga 5 jirka intuu u qaado sida u tuuri jiray baa la yidhi hadduu ilmahooga 5 jirku intaan la ekaa kooga 30 jirku markaa intee buu la ekaa wayaddacuuna alquwa wayaquuluun man ashaddu minna quwwa ayaa annaka naga xoog badan bay leeyihiin ayaa naga xoog weyn walaakiin nabi huud calayhi salaam markuu u yimiday wuxuu ku yidhi wayaa qowmi istaghfiruu rabbakum thumma tuubuu ilayhi yursil as-samaa'a calaykum midraara wayazidkum quwwatan ilaa quwwatikum walaa tatawallaw mujrimiin wayaa qowmi tolkayo waliba qabiil reerkiisa isagana loo diray iyo qoomkiisa loo diray markaasuu ku yidhi istaghfiruu rabbakum rabbigiinna dembi dhaaf weydiista thumma tuubuu ilayhi dembigaad ku jirtaana ka dhex baxa oo xagga rabbigiinna u soo noqda haddaad ilaahay labadaas sifa haddaad ilaahay ula soo noqotaan haddaad istikfaar la timaadaan gaalnimadana aad ka soo dhex baxdaan dunuubta waa weyn dembiga ugu weyn waxa weyn al-ishraaku billaah waa ilaahay oo loo shariik yeelo gaalnimada aad ku jirtaan iyo wixii gaalnimadu ay wadato dhanna ka soo dhex baxa oo toobad keena maxaad markaa helaysaan yursil as-samaa'a calaykum midraara ilaahay samada wuxuu iniga keenayaa roob dhibiciye waaweyn baa samada layniiga keeni dhulkana barakaad iniiga soo saaraya ma intaa keliya may wayazidkum quwwatan ilaa quwwatikum awoodda aad sheeganaysaana layniga qaadi maayo diinta islaamku waxba kaa qaadi mayso waxay kugu darta mooyaane islaamnimadu waxaad adigu haysatid way ku kordhin quwaddii jirka haddaad haysataan quwaddii caqliga layniigu dari quwaddii cilmiga layniigu dari quwadda caafimaadka layniigu dari quwadda maaragtaane baraka cimrigiina laynii gelin quwaddii iimaaniga iyo caqiidada ilaahay niigu dari quwadda aad sheeganaysaan diinta islaamku inagama naaqusayso inagama dhibayso bal quwadda quwad kalay diinta islaamku iniigu daraysaa islaamnimada dad badan baa maanta ka baqaya ha ka biqin diinta islaamka
waxay kuu kordhisa mooyaane waxba kaa dhimi mayso